haddiiba ilaahay subxaanahu wa tacaala habeenka laylatulqadri i waafajiyo oo 10ka bisha ramadaan u dambaysoo dhan aan salaatuleyl iyo qiyaam u taaganahay ducadee baan ilaahay subxaanahu wa tacaala ku baryaa ducadee baan mudan habeenka inaan ilaahay wax ku weydiisto ilaahay subxaanahu wa tacaala ku baryo su'aashan oo kale waxaa laga yaabaa inay dad badan isweydiinayaan maanta waayo waxaynu gollay 10kii bisha ramadaan u dambeeyey 10kii maalmood ee bisha ramadaan u dambeeyey baynu galnay waxaynu ognahay in 10kaa ay ku jirto habeen ka khayr badan 10 bilood ka khayr badan waxaan kaa codsanayaa marka aan ducadan kuu sheego inaad walaalaha kale insha Allahu tacaala gaarsiiso laga yaabo qof aan ducadan hore u maqal inuu ku baryo ilaahay subxaanahu wa tacaala habeenkaas ducadu waxay u dhacaysaa sidatan hooyadan Caaisha ilaahay subxaanahu wa tacaala raaliha ka noqdee ayaa rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waxay weydiisay rasuulka ilaahay haddii aan habeenka laylatulqadri waafaqo oo ilaahay waafajiyo ducadee baan ilaahay subxaanahu wa tacaala ku baryaa rasuulku wuxuu yidhi Caaishay waxaad akhrisataa ducadan wuxuu yidhi ducadan akhriso ducadu waa tee waa ducada halkan aan kuugu soo qori doona insha Allahu tacaala ducadu waxay u dhacaysaa sidatan Allahumma innaka cafuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka rabbiyow adigu waxaad tahay mid cafu u saaxiiba oo dunuubta masaxoo baabiiya waxaan rabbiyow kaa codsanayaa oo aan kaa baryayaa inaad dembigayga aad masaxdo baabiiso rabbiyow waxaad tahay mid dunuubta baabiiya waanad jeceshahay inaad dunuubta masaxdo baabiiso rabbiyow waxaan ku weydiisanayaa dembigayga inaad dhaafto waxaa kala duwan bay yidhaahdaan ghafuur in dembigaaga laguu dhaafo iyo in dembigaaga la masaxaay way kala duwan tahay cafwiga ilaahay habeenka aad ku baryaysaay waa in ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigaagii uu masaxo aslanba ghafuurna macnaheedu waxaa weeyaa baa la yidhaahdaa dembiga asalkiisii wuu jiraa ciqaabkiisii baa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaa dhaafay ducadan ku bari habeenka ilaahay subxaanahu wa tacaala halkan aan kuugu soo qori doonaa Allahumma innaka cafuwun tuhibbul afwa fa'fu anni walaalaha kale insha Allahu tacaala gaarsiiya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته